waxaan talo u soo jeedinayaa marka qabiilka meesha dega dagaalka waa sidaas oo waa la wadaa iyaga waa la wada deganaa nabad baan ku wada deganayn waan wada daaqaynay waan wada cabaynay waan wada dhaqmaynay wax dhibaato oo naga dhex jirtayna ma jirto dadka maxamed subayr sheegay ee shirarka qabtay waxaad arki doontaan hadda akoon baad haddaad fiirisaan maartay aad baadhaan meediyaha oo Facebook aad fiirisaan lambar baa ku qoran qof kasta oo magacaasa la leeyahay lambarka lacag ku soo dir dagaalka lagu qaado xaqiiqo waxaas marka ama meediyaha ama Soomaalidu way baari kartaa waxaan sheegayo dhin inuu jiro waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan u sheegayaa dadka meesha degan een deegaanka nahay een daris wadaagga nahay een meesha wada degan nahay een shalay nabadda ku wada nooleyn walaalayaalow col aan waxba la idinka tarin oo idinka uun aabba idin dhahaya ayaa koorteedii boodaanteedii la idin geliyey salaxaad baa la idinku yimid oo la yidhi annaga idin garab taaganay dagaalka qaada intaa oo magaalo oo dhan baa la idinka yidhi waxaan idin leeyahay qabaa'il Soomaaliya 30 sano iyo inta ka badanba way islayn jirtay dagaal qabaa'il oo daaqsin iyo ceel iyo cid iyo wali lama hayo qabiil kasta in kasta ha la ekaadee dagaalku in kastaba ha socdo qabiil wali la tirtiray lama hayo oo meeshii uu deganaa inda laga tirtiray qabiil kale uu degay wali lama hayo mar dhacayso inta reeraha la tirtira Raafiq Umar oo Maxamed Subayr uu muquuriyo oo dhameysaan deegaanka inaad qaadataan oo nabad ku joogtaan marna ha sugina wax dhacayana ma mar haddii taa hore loo soo ogaaday maanta waa la islayn qolaa dhimasho badnaan bari waa la isku noqon waa la dhimasho badnaan nin mintida oo meel u socda aan haynin iyo nin kibir dagaalamaya oo ka imanaya wardheer iyo walwaal iyo qabri dahri waxa weeye gooha waxa uu harayo xaq darrada aan ku soconin ka deegaanka fadhiye ee gardarrada lagu weerarayo reer salaxaadow iyo reer laga hiday lo ay niman ku soo aroorinayn ku soo fulinayn iyuna ku aroorin balaydi dadka walaalihiina ee wada dhalateen ee abtiya ay sintiin ee dariska tihiin wax idin ka fiican iyo nabadooda la arki maayo indaad colaada la idin geliyeen waxba la idin ka tarayn la idin ku kiciyo iska daysaan shalayba walaal wada degan oo wada nool baad ahayn dhulkana waa dhul Ilaahay oo inna wada deeqay dadkaas nabad ka raadiya oo nabad bay rabaan oo xoog ma rabaan oo diintooda iyo iimaankooda iyo islaamnimadooda yaa diidaysa inay intaa sameeyaan waxaan idin leenahay dadkiina nabad kula noolaada ku wardheer waxba idin ma tarayo gaariso waxba idin ma tarayo dhagax buur waxba idin ma tarayo qabri dahar waxba idin ma tarayo fiiqi waxba idin ma tarayso intaas oo dhani wiilashiina iyo deegaankiina iyo hantidiina inay baabiyaan rabaan waxa weeye yaan qum moosa la idin dhigin dantu idinkay idinka go'daaye waxa weeye dadka nabad bay diyaar u yihiin annaga odayaashoodii annaga idin la xiriiri karna annaga nabadda raadin karna kuwa annaga oo kaliya inda idinka soo baxaan oo dantooda aqoonsan oo garowsan oo nabaddu waxay tahay og oo alla ka cabsigu wuxuu yahay og oo inaan qabiil la dabar goyn karin og waxa weeye aan nabad ku wada